Asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga dhammaantiin kusoo dhawaada Cooking Sucaad hada channelkan ku cusubtiina welcome to the family subscribe saar familka kusoo dhawaad subscribe dhe marka asxaabta maanta waxaan sameynaa karameel aad u macaan badan oo rooti laga sameeyo sidaan u sameynaya niidsan asxaabteyda qaaliga daawasho wacan soo asxaabta maanta waxaan u baahanahay karameelaha aan ku sameyn doono 8 xabo oo rooti salees ayaan ka sameynayaa marka rootiga saleeska waan soo shiiday makiinada ayaan ku soo shiiday kadibna saxankaas ayaan ku shubay soo rootigaas ayaan u baahanahay marka 8 xabo oo salees ayaan isticmaalayaa maanta rootiga soo asxaabta baaquliga ayaan soo qaaday kadibna waxaan ku shubayaa 2 xabo ukun ah 2 xabo ukun ayaan ku sameynayaa 8 xabo oo rooti salees 8 xabo rooti saleeska waan soo shiiday 2 xabo ukunna waa arkaysiin birtaas ayaan ku garaacayaa kadib waxaan ku darayaa nus bakeeri oo sokor ah sokortaan isticmaalaa midka boorbarka ah marka nus bakeeri oo sokor ayaan ku shubay then waa arkaysiin si fiican ayaan isku garaacayaa sokortii ukuntii aan isku daray then waxaan ku darayaa hal qaado oo vanilla aan isticmaalaa waa midka boorbarka ama sokorta oo kale laakiin laazim ah inaan noocan isticmaashid ay vanilla adiga haysta isticmaali kartaa marka insha Allah asxaabta wixii adiga haystid isticmaal kadibna si fiican ayaan u garaacayaa kule hadda waxaan ku daraa nus qaado heel shiidan and then kadib waxaan ku darayaa caano hal bakeeri bar caano ayaan ku darayaa marka caanaha aan ku darana hadda marka waxaan ku daraa rootiga aan soo shiiday rootiga ayaan ku daray kadib si fiican ayaan isku qasayaa dhamaan marka saxaabta insha Allah I hope inaad tijaabisinaysid very easy waaye waqti badan ma ka qaadanayso sahal waaye sidaan u sameynayna wax dhibba ma aha wax sahal ah waa marka insha Allah asxaabta arkaysiin rootiga si fiican isku qasi diyaar waa marka karameelaha sokortiisa aan sameynaynaa soo taawadaas ayaan dabka saaray kadibna 4 qaado oo sokor ayaan ku shubay 2 qaado oo biyo ayaan ku daray cabirkiisa kadibna sokorta dab hoose ku kari marka karinaysidna sidaan u qas because sokorta waqti badan aaduu yacni dab xoog ku karisid waa ka gubnaa marka iska ilaali insha Allah sokorta marka sokorteen haduu arkaysiin kala dahab oo kale uu noqday marka baaquligii amaanta aan ku sameysanahay kastarka karameelka ayaan ku shubay kadibna sidaas aad u wareejinaysaa sidaas ayaan wareejinayaa asxaabta kadibna waan sii sugayaa intuu qaleelka noqonayo sokorta inuu angega waaye marka waan sii sugayaa sokorta ilaa 5 daqiiqo ayaan sugayaa kadibna insha Allah waxyaabaha kale aan sameynayna ayaan tusi doonaa marka 5 daqiiqo kadib waa sokorteena aad ayuu qaleel u noqday diyaar waa hadda waxaan ku shubayaa rootigii aan soo diyaarsanay marka kadibna waxaan ku daboolayaa xaanshadaas oo silbaha ah si fiican ugu xir xaanshada kadibna hadda asxaabta surfiyadaas weyn ayaan dabka saarayaa marka saarana saxan ama standard ah haysid gali aniga saxan standard ma oga meesha igu dhumay marka saxankaas ayaan isticmaalaa muhiim waxaa la rabaa wax inaad kor saartid marka saxankaas ayaan dhaxgaliyay dhaxda ayaan dhigay kadibna rootiga aan soo diyaarinay oo bacdan xaanshada aan ku daboolay ayaan dhaxgaliyay and then had hal jaago biyo ayaan karkariyay tarmuuska biyaha lagu karkarinayo ayaan ku karkariyay kadibna sufriyada sidaas ayaan ugu shubay halka jaag biyo and then hadda dabool ayaan saarayaa ilaa 45 daqiiqo dab hoose ayaan ku karinayaa insha Allah asxaabta dabka hoos ka dhig ilaa 45 daqiiqo asxaabta 35 daqiiqo marka la gaaro insha Allah iska fiiri biyaha meeshuu marayo hadii biyaha qaleel noqdo biyo kale ku dar haduu okay yahayna jaagiisa biyo okay waaye marka 45 daqiiqo waaye si fiican ayuu u diyaarsamada I think waan fiirinaynaa dhaxdiisa marka sidaas ayaan mindiga ugu jeexayaa kadibna mindigaas ayaan ku durayaa soo asxaabta arkaysiin dhaxdiisa wax cajiin ma ku jiro marka karameelkeena rootiga diyaar waaye dabka ayaan ka saarayaa stoofkana waan daminayaa soo asxaabta insha Allah 45 daqiiqo dab hoose ayaa ku karinaysaa dab oo hoose ayaa la rabaa inaad ku huurisid ma la rabo dabka inuu xoog ahaado because dhaqsi ayuu bislaanayaa ceeriina dhaxdiisa ayuu noqonaa marka insha Allah dabka iska ilaaliya
Soo asxaabta hada banaanka ayaan sii dhigaya wax yariis waan qaboojinaa. Markaa qabow wax yariis talaajada ma gelinaa because time ma hayo meel aan u socdo asxaabta. Marka hada banaanka ayaan dhigay markuu qabooban sidaas ayaan mindiga ugu goonayaa geesaha. Markaa sidaas mindiga ugu fujiyay saxankaas ayaan ku gedinayaa. I hope inshallah inaan hoos ku dhigin. Soo asxaabteeda qaaliga waa kay sidaas ayuu noqday anigoo weli talaajo aan gelinin. Talaajada weli ma gelinin markaa sidaas ayaan u goonayaa. Adiga talaajada ayaa gashan kartiin markaa samaysatiin kadib markuu soo qaboobo ayaa cunaysaa. Soo asxaabteeda qaaliga waa arkaysiin maasha Allah karameelkeena rootiga aan ka sameeyay sidaas ayaan u sameeyay. Zaid ayuu macaan badan yahay. I hope adinkan inaad tijaabi doontiin recipe-gan oo easy ah maanta aan soo geliyay. Soo asxaabteeda qaaliga hada video-gan ka heshay maanta sidaan u sameeyay karameelahan oo rootiga aan ka sameeyay video-gan like saar si share gareysii walaalahaaga asxaabtaada u arkaan ay ka faa'iidaan. Asxaabta channel-ka cusubna ku soo dhawaad family subscribe saar subscribe kadibna iska balaalka riisku yaala rix mar walba video aan soo gelaysay dhaqso aad heshaan. Soo asxaabta waa kay maasha Allah ku soo dhawaada. Marka asxaabteeda qaaliga video-geena maanta karameelaha rootiga intaan ay ku ekyahay until then inshallah next video aan maqli doonaa with new recipe. Dhamaantiina khayr badan aan dhaaftooni meel walba ka joogtaan and as always saacadu ku xasuusta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.